ku soo dhawaada Kista TV waa barnaamij kale oo aan ku eegayno arrimaha teknoolajiyadda. Magaciigu waa Maxamed Cumar, aniga ayaa idinla socodsiin doona. Soomaalida degan dalka Mareykanka ayaa u badan kuwa ugu isticmaalka badan serviceka T-Mobile-ka. Markii hore T-Mobile ayay ugu xilan jireen qiimaha oo jaban iyo ayaga oo aan dibadda uga bixin magaalooyinka waaweyn oo ay deganaayeen. Sidoo kale T-Mobile ayaan xadidi jirin hadalka oo ahaa unlimited, inkastoo hadda ay ku soo jeesteen dadka isticmaala conference roomyada, kuwaasoo ay T-Mobile sheegeen inay minido xad dhaaf ah geliyaan kampaniga. Arrinkaas ayaa keenay inay dad badan ka diga rogtaan T-Mobile oo aadaan kampaniyada sida Verizon oo kale. Sidoo kale waxaa soo dedejiyey kala baxa T-Mobile iyo Soomaalida ayada oo ay dad badan ay noqdeen taraagley oo qadka T-Mobile-ka uusan ku fiicnayn meelaha baadiyaha ah ka fog taalooyinka. Hase yeeshee waxaa baryahan dambe soo shaac baxayay dad badan oo Soomaaliyeed oo ka cabanaya in uu kampanigii telefoonada oo ay ugu isticmaalka badnaayeen dadka Soomaaliyeed uu noqday kan ugu badan oo dadka ka dhigay bad credit ama sumcadda uga cayaaray. Baaritaan dheer oo aan sameeyey ayaan ku ogaaday meesha kaliya oo laga qaniinay dadka inay tahay T-Mobile. Dad badan ayaa ku baraarugay mar ay damceen inay guryo kireystaan inuu kreditka kaga cayaaray T-Mobile, isagoo ku soo dallacay qarashaad aysan war u hayn. Markay iska diideen inay bixiyaan lacagtaas ay u arkayeen xaqdarrada, ayuu kambaniyada kreditka u qaabilsan shacab weynaha Mareykanka ee sida Equifax, TransUnion iyo Experian u report gareeyay, kuwaasoo dadka faylkooda u geliyey. Haddii faylka kreditka lagu geliyo waxa loo yaqaano negative item ama shay lid ku ah caafimaad qabka kreditkaaga, waxay kugu jiraysaa 7 sano ama lacagta bixi ama ha bixin. Waxaa kaloo dadkaas ay walaac ka muujiyeen inta badan inay lacagtaas deynta ah si qalad ah loogu geliyo. Haddaba su'aal aan idin weydiiyo, ma kala kulantay T-Mobile dhibaatooyinka lagaga cabanayo? Fadlan jawaabta iigu soo qor commentiga hoose si aan u ogaano xaqiiqda dhabta ah oo jirta. Like and share videoga oo asxaabta la wadaag. Channelka subscribe saar haddii aad xiisaynaysid wararka teknoolajiyadda. Mahadsanid.